haddii qoys ay arrin soo dhex gasho oo arrin ka murugto sootii sida dhaqanku ahaa gacmo geel jiray hoos baa loo dhaqaayay sootii hoos loo xalin jiray maaha oo markii xataa iyaga ka taf dheeraato ay qoyskooda markaas ay ula maxaa ku rahay eeban jireen iyaga ay la wadaagi jireen rayahanay sheekayran kaaga sheekayna dadkan uga faa'iideena waxa jiri jiray nin la yiraahdo Cabdi Beenaale waaga iskuulka fasalada labaad saacad dhigan jirnay aan lagu soo dhigay Cabdi Beenaale maalmaha kamid ah isagoo xoolihii la jooga buu hadlay wuxuu yiri magaaladii buu la hadlay xooluhu raacay wuxuu yiri ii soo gurmadooy waraaba iimi xoolihii iga cunaya dadkii oo dhan ordaya u yimi waxa la yiri warninka waraabaha laga gaaro markii loo yimi wuxuu yiri waa beentay ahayd wax waraaba oo yimi male dadkii baa yiri Cabdi Beenaale magacii halkii uu kula baxay way iskaga tageen ayaantii dambe baa waraabi runta aha u yimi markaasuu meeshii soo istaagay warii soo baxoy waraaba iibiyay dadkii waxa la yiri waa Cabdi Beenaale yaa loo tigin waraabihii xoolihiina waa ka dilay isagiina lug buu ka cunay baa yiri marka aduu shalay hadda halka been la soo fariisatay bari hadii gurigu ku gubto dadka darska kula asay ku aaminayaan oo gabadhii loo gaaro loo oranaya hadii ninkaas waa nin bini aadan wax walba idin dhex mari kara oo bari hangool intuu ku qaato taagto ku jabiyo halka aad soo fariisato Soomaaliya ay soo gaara sida baa lagu aaminaya hadii bari Nairobi baad joogtaan oo habeenka wax la awoodsanay dabku in ka damo aad tiraada war Soomaaliya warnoo soo gargaara hatta seelani aaminaya marka waxa rabaa waxa la yiri maxaa ku raahdaayay runt beentaada hore waxa u daran tahay runtaada dambe marka waxyaabaha noocaas aad isaga ilaaliya gabadha la yiraahdo